جمعيته waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 25aad bay u dabaaldegaysaa 25 sano ay jimciyadu runtii soo shaqeynaysay 25 sano muasasada inay jirto waliba Soomaaliya ay ka jirto waa najaax tan isleeyahay waxaan rabnaa inaan isqiimayno 25 sano kadib xagee u socono 25 sano waa waqti aad u badan laakiin haddana haddii la fiiriyo xilligaas imisa organization baa waddanka ka furan ka asaasmay imisa ka joogta hadda waxaa laga yaabaa inay tiro yar yihiin inta ka joogta laakiin marka horeysa boqolaal baa asaasmay labada shay oo xumbalay bini'aadamka waa col iyo abaar balay labada dalkeena way ka jiraan ilaahay waxaanu ka baryaynaa labada inuu naga dulqaado subxaanahu wa tacaala labaduba gurmad bay u baahan yihiin shaqo la'aanta oo intaasoo qof ay meherad u wada yeeleen oo intaasoo qof ay ka badbaadiyeen inay dariiqaas ku dhacaan oo saxaraas ku dhintaan ama meel sanadkii 2016 ay tagay runtii wuxuu ahaa sanad hawl badan iyo shaqo badan isla markaasna jimciyada ay wax badan runtii u soo qabsoomay haday noqon lahayd dhammaan aqsaamta iyo waaxaha jimciyada ay ka shaqeyso iyadoo fulinaysa ahdaafta iyo ru'yada ay boorka jimciyada u dejiyeen kaasoo ahaa in jimciyadu ay noqoto jimciyad raa'id ku ah عملك إنساني كأه مركا لجاه الله ديجان كأي قطاع كشقيس. إلى ما سبحانه وتعالى وحا حلق الأساسي تدكي أساسي وحيكو أساسي المبدأ إن بروفيت لجر هذين الفائدة لجر هذين إن بالشدة الله ربي وحلاقته وحلق حلق دولة السومالية بالبوطي ويكبل لابن مركا وحال إلى وحي الصح لو أساسه سيف عم بوصاص صح وصعنيا ونسي بركوبيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف هل نفنوليه ومحو كنوليه وأوجر جاري سوى باهن أو جاتشل اللي ته يوسعي وجاتشل كساري تقول مدي يسميه جرجار يسوى أو جاهلة أو أنا قول ما هم بوحبري وأوجر جاري يسوى أو من بورابي ونوليه isagoo oo dhunsan oo maskaxiyan u khaldan buu toosiyay oo hanuuniyay qofkaas qof ku nooleeyay la mid anagu marka ka maqaadayna fulinta ru'yadaas fog iyo yani risaalada ama fariinta jimciyada ay leedahay oo ah in la sameeyo mashaariic joogto ah oo mustadaam ah taasoo lagu xaqiijinayo in laga khafiifiyo bulshada Soomaaliyeed dhibaatada haysata maadaama aanu ka dhax shaqeynayno bulsho ama mujtamac dawladdiisa ay burburtay isla markaana aysan jirin cid u xil qabta ama adeegii u baahnaa sida ugu baahnaa aysan ugu istaagayn ayaan waxaan ka midnahay juhuudaas iyo dadaaladaas ay wadaan muassasaadka khayriga ama dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliya ka shaqeeya jimciyadu waxay ka shaqeysaa aqsaam kala duwan sidaad wadaagsoontihiin ugu weyn yahay waxbarashada wacyigelinta iyo dhowrista ama daryeelka hooyada iyo carruurta mashaariicda gurmadka degdega ah nafaqeynta iyo caafimaadka wuxuu ka shaqeeyaa sidoo kale biyaha iyo fayadhowrka kor u qaadista dhalinyarada intaasoo mashaariic iyo guud ahaanba waxa la wixii la xiriira horumarinta bulshada jimciyada ay ka shaqeyso marka ilaahay wax loogu mahadiyo way subxaanahu wa ta'ala shaqada fiican ee inoo soo qabsoontay ee soo qabateen ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay la shakartum la aziidannakum hadii ilaahay qofku ilaahay uga mahad celiyo ilaahay waafajiyo khayrka ilaahay uu ziyaadinaya energy-giisu uu ziyaadaya shaqadiisu uu sii fnaanaysa wax lagu asaasay ee lagu bilaabay in tacliin ahayd tacliintuna waa shayga ugu muhiimsan ee qofka bini aadmiga noloshiisa wax ka bedeli kara maxaa yeelay waxaad ogtihiin qofku ka aqoon badan yahay ama wadanku ka aqoon badan yahay ama tacliinta uu tiim ka sii u koormaysan waxbarashada in hadda wixii ka dambeeya aan runtii tayada xooga saaro si marka arintaas oo hirgasho waxaanu ka bilownay in la qaato kow
macallimiin tayo leh in la qaato oo runtii waxaan bilownay nidaam imtixaan ah oo macallimiinta lagu qaato si loo helo macallin tayo leh oo ku soo baxay competition fiican toogana waxay ahayd tacliin bay ahayd haddana hadafka ay la soo baxday oo ahayd yani musaacada dadweynaha iyo wixii dhib qaba iyo waxaan dhib qabinba inay musaacado hadda waxay ku darsatay inay la dagaalanto oo dagaal xoog leh ku qaado shaqo la'aanta mashaariicda aan wadno waxaa ka mid ah oo runtii aan isleenahay mustaqbalka ahmiyad weyn buu bulshada ugu soo kordhin doonaa waa xoojinta iyo kobcinta dhalinyarada center weyn ayay jimciyadu dhistay oo hadda dhammaaday oo qalameyntiisii ay dhammaatay oo aan bisha march insha allahu tacaala gudihiisa aan furi doono centerkaas waxaa la yidhahdaa maandeeq garden beerti maandeeq baa la dhahaa oo hashi maandeeq baan ugu magacdaray 542 shaqaale ah ayaa hadda jimciyada ka shaqeeya oo isugu jira shaqaalo maamul ah kuwa macallimiin ah kuwa ka shaqeeya deegaamada fogfog boqolkiiba 36 waa gabdho hablaha marka hadda jimciyadu kor bay u soo qaaday 36 boqolkiiba oo dhiganta 195 waa gabdho runtii waana shaqada ugu quruxda badan oo ugu fiican bay gabdhuhu qabtaan